haddaba qofka og inay geeri sugayso oo maxay ahaydeen munkar iyo nakiirna su'aalo weydiin doonaan og qiyaamo in loo yabaho la soo saari doonana og carrada dhabanka in loo dhigi doonana og aboor iyo asaga in loo kala dhexbixi doonana og qofkaasi wuxuu u shaqaystaa ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelintiisa siduu naftiisa u badbaadin lahaa liibaanna u gaadhsiin lahaa buu qofkaasi ku dadaalaa haddaan ogaanay marka waxaa inoo dambeeyey sida loo kala noqon doono saddex dardaaran keliya aan raaciyo nafteedii iyo tiinaba aan u dardaarmayo dardaaranka koobaad adduunya aysan nasirin quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedana yaanaan wax moodin dad naga karaamo badnaa oo naga sharaf badnaaba adduunyadan isaga tegay annagana waa ku daba jirnaa orodka aad adduunya eryayso aakhiriyuusan ku halmaansiin adduunyana orod laguma gaaro ilaahay baa subxaanahu wa tacaala adduunya noo qeexo wuxuu yidhi wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur waa un lagu kadsoomo raaxa lagu sirmo lagu kadsoomo wey nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunya ilaahay agtiisa haddii xataa baal kaneeca inta uu jira ay la qiimo tahay ilaahay agtiisa gaalba biyo kama ka badeen buu yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh zaynulcaabidiinna gabaygiisii qiimaha badnaa markuu adduunya ku qeexaayo wuxuu yidhi adduunya yaysan ku sirin iyo quruxdeeda bal fiiri buu yidhi ninka adduunya oo dhan ay gacanta u soo gashay kursigeedii iyo maalkeedii iyo magaceedii wax walbuu helay maxaa ka raacay buu yidhi oon ka ahayn kafan cadoo lagu duubay iyo catar loo marmariyey hal raaxa minha bigayri alxamdi walkafani nin guryihiisii iyo gawaadhidiisii iyo biladihiisii lala aasay idinku weli ma garanaysaa maya camalkaaga keliya kula gudgalaya marka adduunyada markaysan nasirin aakharaha loo diyaar garoobo ha loo shaqayso